in qof walba qofka kale uu isu qurxiyo innaga gabdhaheenu inta arintaas kuma gaabiyaan innaga dhamar khaatiban ka nahay badankeenu waxa la yiraahdaa dumarka isugu carfinta badan oo guriga ugu hagaajin badan oo ugu labiska badan bay dumarkeenu ka mid yihiin raggeena laakiin ilaahay baa waxa la sheegaa nin intuu maanta dhan taxi soo waday 15 saac ama 10 saacadood buu habeenkii guriga imaanaya gabadha wuxuu rabaa inay carfayso oo labsan tahay asaguna ma isdar yeelay Umar baa waxa la yiri radiyallahu anhu waxa uu yimid acraabi oo reer baadiya xaaskiisu ka sheeganaya markay u soo dhawaayeen bay gacmaha ku taagtaagtay waxay leedahay la hada wala ana kan iyo aniga midna wax ma maqlayno waxa hadalay ku taagtaagaysa ninkii waa arkay waa nin basaasan oo reer baadiya oo dhibaataysan intuu yeero wuxuu ku yiri orod ninkan raaco soo qubayso tinta soo jaro soo carfi isoo noqo ninkii uu baxay tintii uu soo jartay uu soo qubaystay uu soo qurxiyay uu soo laabtay markaasuu wuxuu orod xaaskaaga u tago salaan markuu soo dhawaaday ka carartay way garan weyday markaasuu yiri zawjkaagi baan ahay meeshii baa hadal ugu dambeysay baa leeyahay way aamusto markaasuu Umar wuxuu ku yiri orda israac oo gurigiina aada markaasuu Umar wuxuu yiri walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf waxa lagu leeyahay oo kale bay iyaduna leedahay Abdullah ibn Abbasna waa laga sheegaa inuu dhigi jiray xaaskaygu say isu qurxinaysan anaguna isu qurxiya inuu dhigi jiray waxa